shirka yaga jaraa'id wuxuu daaran yahay maanta nabadgelyo wuxuu daaran yahay nabadgelyo tuula samakaab haddii aanu nahay beelweynta jaamac siyaad shirka yaga wuxuu daaran yahay nabadgelyo annagu colaad mana aanu talinna mayno colaadana ninka ku degdegaa wax kaba taro ninka nabadda xejiyaa colaadana wax ka tara haddaan hore uga sii yar dhaqaaqo waxaan u sheegayaa waxaa la yidhi kabtu faygay ka idlaataa hadalkaa markaan leeyahay ninkii fahmayaa wuu fahmaya waxaa la yidhi dagaalku waa weerar kudaac iyo weerar kudaal haddaynu nahay beelweynta jaamac siyaad dagaalka haddii haddeer uu bilaabmo waxaynu nahay weerar kudaac war dagaalkaa yaan la gelin yaan ciyaar lagu gelin anigu cidna ku leexan maayo isin taaban maayo odayaal taaban maayo guddi taaban maayo waxaan ka hadlayaa wax if iyo aakhiraba ii wacan oo geeridayda iyo noloshaydaba u wacan oo aakhiradayda u wacan oo wixii iga tala qaadanaya u wacan qofowna ha nugu soo habsaamin waxaan xusaystaa kii aydhkii haddeeraa waxaa lala baxayaa haddii dagaalkaa la galo magacyo ma dareeminiyo ma maqlayniyo layma sheeginiyo ma fahminiyo baa hadhow lala baxayaa dadkii magacyada la bixi jiray haddeeray magacyadaa la baxaya waxaan kula dardaarmayaa haddaynu nahay dhammaan beelweynta jaamac siyaad ama maxamuud garaadba dagaalkaa yaynan gelin waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliland oo arrintii halkaa ka dhacday si wanaagsan ka yeeshay banaankana uga baxday garaadaduna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa isaabta ay tahay hadday gobolkoodii isugu yimaadeen gogol la dhigeen waliba garaadka iyagu garaad jaamac garaad Ismaaciil uu gogosha dhigay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay garaadku iyaguna wuxuu gogosha u dhigayay in nabadgelyo laga tashado arrimaha gobolka nabadgelyo looga tashado buu garaadku iyagu gogosha u dhigay dhibaato iyo dagaal uma dhigin dhulmaantana maanta uu ka tashaday ayahiisa dawladda Soomaaliland lala xisaabtamo oo wax lala qaybsado oo arrintii halkaa wada hadal dawladda lala yeesho wixii tabasha gobolka wixii ka dhacay ee shaqaaqa ahaa ee gobolka ka dhacay ama ku dhintay laga wada hadlo wax qaybna laga wada hadlo dawladduna waxaan u maleeyaa maanta diyaar bay u tahay arrintaas madaxweynuhu uu ka hadlay cid kasto siyaasi oo dawladda ku jirta way ka hadashay wax qayb iyo wada hadal gacmo furan in dawladda iyo beesha dhulbahante ama fiqishiini gobolka Sool si wacan loo wada hadlo markaan ka soo gudbo annagu haddaanu beesha jaamac siyaadnahay dagaal diyaar uma nihin uma soconno nabad baanu ku baaqnay nabad baanu doonaynaa dagaal ma gelayno laakiin wixii wada hadal tabasha diyaar baanu nahay in dawladda la wada hadlo laakiin wax dagaal aanu gelaynaa ma jirto dhulbahante reer walba meel iska soo xaydxaydin oo waxa weeyaan waxaan la isku sheegayaa waa been iyo riwaayad arrimihii shirkuna haddeerto waxaa muddaa inuu dhinac kale u yar leexday marka oo si arrimaha adigu koonfur naga yimi ay u yar leexatay marka waxa weeyaan arrimahaas cid la khaldayaa ma jirto haddaanu jaamac siyaadnahay dagaalka diyaar uma nihin kuma jirno nabad baanu ku baaqaynaa nin kasta oo Soomaaliya oo muslimiin nabad baanu ugu baaqaynaa dagaal lama gelayno diyaarna uma nihin nabad baanu u baaqaynaa Soomaaliland iyada waddanka ka talisa iyada dawladda Soomaaliland waxa weeyaan waxbaanu la qaybsanaa waxbaanu la leenaa waxaan kale u mahadcelinayaa oo General Mahad Cambaashe oo isaguna go'aan muhiim ah qaatay isna waa u mahadcelinayaa ku hadlaya afka dhalinyarada deegaanka tuula samakaab maanta warsaxaafadeedkan waxaanu qabanay inaanu nabadgelyada guud ee gobolka baaq ka soo saarno gaar ahaaneed inaanu deegaankan beelweynta jaamac ay degto aanu baaq ka soo saarno baaqaasoo daaran nabadgelyadu waxay dan u tahay iyo cidda dan ugu jirta qof waliba uu garanaya noolahoo dhan bay dan ugu jirtaa dadkan maanta colaadaha iyo rabshadaha ku baaqaya
ودد arrimo ganacsi oo muhiim ah aan ognahay doonay inay kaga hadlaan oo masiirka aan dadka iyo ka nabadgelyada iyo ka gobolka midna ka hadlay sidaa darteed annaga dad ganacsi laga dhigto oo lagu gorgortamo ma nihiin dadka iyagu nabad buu doonayaa nabad baanu diyaar u nahay Soomaaliland baanu nahay gobolka Soomaaliland yahay waa la ogyahay wax laga go'ayo ma wax maanta hadal iyo wax yar saxaafad la orda lagu noqonayo Soomaaliyana ma aha maanta haday aqal leeyihiin hadalkii madaxweynaha Xasan Sheekh way maqlayeen inuu sheegay in Soomaaliland ka tirsan yihiin inta saaxiib qaadasho ugu filan marka annaga halka waxa nooga soo baxay dadka shirarkan iyo dagaaladan ku baaqaya inay dad dagaal ganacsi ka dhex doonaya yihiin kuwaan anagu taageerayna mana nihin Jamhuuriyadda Soomaaliland wixii naga maqnaan wada hadal ku dhameysano diyaar baan u nahay iyana diyaar buu tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baa sheegay maanta shirka anagu maalintii hore garaadku soo dhigay waa la ogaa laakiin maanta waxa muuqata kiisaskii madaxweynuhu sheegay ee dadkii gobolka lagu leeyin jiray in ma jar hawaamintooda inaan la soo bandhigin la rabo dhulbaantana doonayo dadka ugu badan anaga la keenayo gobolka ee maxduufka dilay kuwii maanta marka la soo bandhigo in la babco leeyahay Soomaaliland lala hadli maayo waxaan u arkanaa in wixii dadka la laayay garab la siinayo saasana meesha nooga muuqato dhulbaantana waxaan u sheegayaa hadda doonaysan wixii wax laayay madaxweynuhu uu ka hadlay ummadda Soomaaliyeed oo dhan wada hadal baa diyaar u tahay wax lagu dhameeyo cid waxa la inta la soo saaro inta wixii ka baxsan waa fadqalo la diyaar noo waxaanu maqalay in shir ka dhacaya laascanood garaadaduna ay isugu imanayaan dhulbaahantana waxaan malaynayaa dee garaadada waa loo sameeyay go'aanka ka soo baxa garaadada waa la wada sugay mid Soomaaliland ka mid ah iyo mid shacababa garaade u hayo waxaana la yaqaano caadiyan oo Soomaalidu dhaqan u leedahay marka shir la qabanayo ee garaada la dirsado ee cid la dirsado ee la wakiisho in la sugo go'aan ka soo baxa laakiin maanta laascanood waxa ka muuqatay go'aankii aan soo bixin in ficil la bilaabay oo shirkii aan la wada sugin dadkii ay noqdeen qayb shirkii sugaysa oo ka war sugaysa iyo qayb hawl iska bilaabatay kuwii garaadada la socday ee la soo galay ee dhulbaahantaha kale la midka ahaa ee la doonayay inay go'aamada sugaan baa maamul hoosta ka wata oo taariikh ka goynaya oo baabuur baaraya oo shaqo kala bilaabay dadka waxa lagu haystaa idinku Soomaaliland baati oo lagu eedeynaya maamulkaana wax kumaanu dirsan bay dadka qaar ku hadlayaan maamul meel uu kala yimi aan la garanayn jeebkiisa aan inuu fuliyo doonaya marka waxaan oran lahaa anigu waxa wacnayd in dadku horta shirka wada sugo khaladkuna wuxuu ka imanayaa dadka in qaybina shirka sugto waxa ka soo baxaya qaybina ay hawlo gaar wataan waxaan oran lahaa garaadada hal ixtiraamo hana laga wacaal dhowro hana lagu qanco waxa ka soo baxa laakiin yaan laga hor dhicin oo yaan iyagoo shirka lagu jiro la samaynin wax aan la isla ogeyn waxay noqonaysaa taadana baxragna in la yiraahdo laascanood ka baxa oo daawada cid baqdin uga baxday ma jirto waxa looga baxay oo ciidamada kale uga baxeen oo ciidamada Soomaaliland ku jira dhulbaanta uga baxeen waxa weeye wax ixtiraam garaadada ee baqdin ee cid kaga baqayeen ma aha kuwaasina inay ixtiraamaan oo